السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وعد السلام عليكم قالي مeel kasta dunida joogtaan kusoo dhawaada YouTube channelkayga miskimaanka official fadlan hadii aad YouTube ku cusub tahay subscribe saar hadii aad hore nool joogtiin welcome back maanta waxaan idin wadaa qiso yar ee ku dhacday gabar muslimad ah qisadana sidan ay ku bilaabatay waxaan ahaa gabar dhalinyaro ku soo barbaartay guri dhaqameedin waxaan gaaray 32 jir waxa ay soo doonay wiil dabadeed markii wiilkaan heshiinay waxa lagu yiri gabadhan waa qof weyn waqtigii guurkana way dhaaftay ilmo badan dhalimeysay iska daa waxa noo yimid nin ka socda xagga wiilka wuxuuna noo sheegay in ay ka noqdeen arintii doonista runtii waxay ugu noqotay arin adag hase ahaatee waan iska samray waxaan aaday cimro xaramka barakeysan waana soo duceystay ilaahay ayaan soo baryay kadib markii aan ku soo noqonayo wadanka diyaaradda dhaxdeeda waxaan ku arkay saaxiibaday iyo ninkeeda oo isla socda iyo saaxiibaday ninkeeda wiil ay saaxiibo ahaayeen kadib markii wadankii aan nabadnimid ama aan imaanay dhowr cisho kadib waxa ay soo wacday saaxiibaday waxayna igu tiri wiilkii diyaaradda nala saarnaa ayaa doonay inuu ku soo doono aad ayaan u farxay kadib wiilkii waan heshiinay waana isguursanay markiiba waxaan qaaday uur waxaan diiday inaan u tago dhakhtarka si aan u ogaado waxa caloosheeda ku jira wuxuu yahay markii la gaaray waqtigii aan dhalayay waxa ay imid hooyaday iyo walaashay markii aan indhaha kala qaaday waxaan weydiiyay wiil mise gabar iyagoo ilmeynay ayaa waxay igu dhaheen 3 cunug ayaa dhashay 2 wiil iyo hal gabar ninkii horena wuxuu iiga tagay inaan ilmo badan dhalin ilaahayna wuxuu hal mar isiiyay 3 mataana ogow qof kasta oo ilaahay isku xiro ilaahay ma dayaca wuxuuna ka irsaaqaa meel uusan ka filin fadlan hadii aad qisadan ka heshay YouTube-kayga subscribe saar waxaan soo gelin doonaa qisooyin aad u cajiib oo ka sii cajiibsan tan hadii aad hore noola joogteen like-ta iyo comment-iga iyo share-ka badi aad ayaan ii jeclaa asxaabtayda kusoo biiray YouTube-kayga waxaad ka heli doontaa qisooyin kuwan ka sii cajiibsan